kaad haddaba u fiirsato fardaha ciidanka iyo awrtaba siduu ugu taliyey ayay ku caddaanaysaa in garaadku ahaa tabaha dagaal aqoonta nin wax weyne uga bilownaayeen dhinaca diyaarka dhigidda joogtada ah ee ciidamadana aan wax u ogeyn ammaanduulayaashii la xilliga ahaa ee bari iyo galbeedba dunida ka caanbaxay xeerka saddexaad ee garaad wiilwaal uu soo rogay dhaqaalaha ayuu ku saabsanaa wuxuu guddoomiyey qoysaska tolka inaan qaarna dhereg iyo calool buuxda ku seexan qaar kalena hamuun iyo harimo la'aan la weydoobin hiddaha soomaalidu wuxuu ahaa reerka saboolka ahi inuu midka hodanka ah neef ama laba ka maashado inta ay irmaan yihiin shafeecsado goortii ay guraan amaba ay rimaanna uu reerkii awalba iska lahaa dib ugu soo celiyo waxay ahayd arrin dhaqanka miyiga aad ugu fog si aan fulinteedu sandullo ahayne ay samafal ahayd waxay badanaa ku xirrayd reerkaa hodanka ah ninka ugu weyni siduu deeqsi iyo waxgarad u ahaa iyo kolba inta ay isu jiraan reerka nacfiyaridu hayso ee wax ka maashanaya wiilwaal isagu dhaqankaas samafal kama dhigine qasab buu ka yeelay reer geel badan xerada ugu jiro ayuu goor subaxa ku soo waabariistay hal ama laba intuu ka soo eriyey buu reer aan tuludna lagu ogeyn gacanta ka geliyey nin awr badan leh ayuu laba ama saddex ka soo eriyey oo wax uu ku guuro aan haysan aqalkiisa ku hor arumay waxay la ahayd kadin geela nin haysta oo dhiiraha carruurtiisa ay caanuhu ku baryaan iyo nin aan halina u foofayni intay tol wada noqdaan inay col ku soo duulay si wada jir ah ay ugu jirib dhigaan taasina waxay i xusuusisaa laba meelisoo ku jiray allah u naxariistay aadan guray maxamed cabdille ti xogatus ahaydoo nin ay hilba ahaayeen uu beri u mariyey waa meelisyadii halqabsiga noqday ee ahaa nin ardaaga jiifa iyo nimaan soo afurinaynin inay hiil u soo wada ordaan sow-an garaf maaha qabaa'ilka soomaalida iyo kuwa gaaluhu waxay muddo dheer ahaayeen xoolo raacato darisa wixii ka horreeyey qarnigii 20aadna waxay labada qoomiyadoodii si joogto ah ugu halgami jireen lahaanshaha ceelasha iyo dhulka ay biyihiisu dhow yihiin ee waraabka xoolaha iyo dadkaba aan looga maarmi jirin dhinaca soomaalida waxaa dirirtaa ugu badnaa wiilwaal iyo tolkii uu garaadka u ahaa gaalahana waxaa boqor u ahaa dagaalyahan macangag ah oo gaalgurey ay soomaalidu u tiqiin haddaba dabayaaqadii qarnigii 18aad ayay dagaalo ba'anay deegaanka jigjiga labadaa qolo ku dhex mareen inkastoo gaaluhu ay xoogaa bartiraha ka itaal roonaayeen haddana si ay ku dhacdayba waxay markii dambe gaareen is-afgarad ku saabsan biyo qaybsiga ceelkii banka jigjiga loogu soo aroori jiray waxay ku heshiiyeen maalinta gelinkeeda hore inay gaaluhu ka cabbaan gelinka dambena uu bartiruhu xoolaha ka waraabsado reer gurigana uga dhaansado hase ahaatee muddo gaaban kadib ayaa waxaa soo ifbaxday heshiiskaas inuu bartiruhu ku hulgan yahay gaaluhuna ay ku guulaysan yihiin sababtuse maxay tolow ahayd waxaa la yidhi dhulka ay jigjiga ku taallay waa dhul jilicsan sidaas darteedna ceesha laga qotaayo si fudud bay u duntaa gaaluhu waa berigii ayay yimaadaan ceeshii oo xalay si wacan u maaxatay markaas bay xoolaha ka waraabsadaan sidii kale oo ay doonaanna uga muraadsadaan gelin dambe ayaa la soo gaaraa kolkaasoo sidii lagu heshiiyey ahaa xilligii uu bartiruhu lahaa hase ahaatee iyaga iyo xoolahooduba waxay dawda soo gaaraan ceelashii oo cagtii geela iyo isdhafadhaafkii dawlisyadu ay jilciyeen dabadeedna dhowr hormo oo keliya markii ay ka waraabsadaan ayay wada dumaan iyada oo intoodii badnayd xoolihii ay soo aroorsadeen ay ka ooman yihiin haamihii dhaamankana aan lagu dhibcin waxay isku dayaan inay mar kale qodaanoo ay ciidda dibadda uga soo saaraan waxse ugama naasacadaadaan maxaa yeelay iyaga oo weli ciid bixintii ku hawlan xoolihiina ay ooman yihiin ayay maalin walba qorraxdu ka dhacdaa arrintaasi wiilwaal way u cuntami weyday haddii uu ka cawdayna gaalgurey wuu uga garaabi waayey markaas buu go'aansaday heshiiskii biyo qaybsiga ceelka jigjiga ku saabsanaa inuu buriyo dabadeedna
mahmaahdii ahayd rag ciil cadaab buu ka doortay intay isdareensiiyeen ayay isaga iyo raggiisiiba waxay tala kaga ibabeeshay isla weynida gaalguray inay dagaal ka xigaan ha yeeshee tiro iyo hubba laga badane sidee bay wax yeelaan oo dagaal waa lama huraane yay hiil u doontaanoo yay cudud iyo ciidan ugu irkan karaan kolba waxay tala gorfeeyaanba ugu dambaystii waxay ka badin waayeen inay u qayla dhaansadaan soomaalidii xilligaa ugu ooda dhoweyd ee xagga bariga ka xigtay kuwaasoo loo diray erga ka kooban odayo culculus oo uu garaadku soocay aadna uu ugu kalsoonaa maxaa xigi dara